Bismillahirrahmanirrahim. Maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha Febraayo 2020 kuna saabsan xilka qaadis wasiiro iyo magacaabis wasiiro cusub. Xeer madaxweyne Lara Eber 28 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 48 farqadiisa labaad iyo qodobka 54 farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dawladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu tixgeliyay howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan wuxuu xeeriyay qodobka koowaad ee xilka qaadista Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq wasiirka wasaaradda waxbarashada Faysal Cabdulaahi Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jibriil Maxamuud Aadan wasiirka ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhanka kale madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiiro cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan Maxamed Yuusuf Xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada Abdulqaadir Umar Cabdulaahi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Fataax Isaaq Maxamed wasiirka ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafdigareen uuna saxiixo billahi tawfiiq.